ninkani waxa uu qabay xaas aad u jecel oo raaliyo ahayd shirqool ayuuse ku dilay iyadoo xaamilo ah waxa uu ka soo tuuray fiinta ugu sarreysa buur dheer oo ku taal Turkiga si uu u dhaxlo $10,000 oo lacag ah ayuu uga takhalusay ilmihiisii iyo xaaskiisii afgambigii soo gabagabeeyay farxadii qoyskan iyo qisadoodii ayaan ku dul istaagi doonaa warbixintan like saar bogga Maxamed Muuse Tarsan siina faafi muuqaalkan mahadsanid Hakan Aysal iyo Samra waxay ahaayeen lamaano Turkiya oo aad isu jecel ka hor shirqoolkii buuraha jacaylkooda ayaa soo bilowday 8 sanadood ka hor markaasoo Hakan uu dhameeyay jaamacadda Anadolu University oo ku taal magaalada Askashahir ee dalka Turkiga Samra Aysal waxay ninkeeda ku haysatay farxad naxariis kalgacayl iyo nafla qaybsi uu u muujiyay muddadii ay isqabeen waxayna ahaayeen dad laga dheegto casharada jacaylka iyo wada noolaanshaha lamaanayaasha markaasoo dad badani ay kala socdeen baraha bulshada iyagoo tusaale romantic ka noqday Turkiga dhexdiisa bishii Juun 2018 Hakan ayaa xaaskiisa u kaxeeyay buurta Batarfali oo u dhow magaalada Mugla oo ku taal koonfur bari Turkiga maalinkaas waxa uu xaaskiisa u sheegay inay farxad soo wada qaadanayaan maadaama ay uur 7 bilood u lahayd waxay wada galeen sawirro baraha bulshada ku faafay oo muujinaya farxadda iyo jacaylka ka dhaxeeya labadooda Hakan oo qorsheynayay dilka xaaskiisa muddo 4 saacadood ayuu ku hayay buuraha aadka u dhaadheer kuwaasoo ka mid ah deegaanada leh jawiga cudoon iyo carrada san ee aadka loo jecel yahay in la booqdo Hakan Aysal oo 40 sano jir ah waxa uu nolosha u qoonsaday xaaskiisii Samra Aysal oo 32 jir ahayd iyo cunugeedii caloosha ay ku siday kadib markii iyagoo sawir selfie wada galay uu xaaskiisa ku codsaday inay la soo fuusho cirifka sare ee buurta waxaana uu si lama filaan ah uga tuuray dhalada buurta oo dhererkeeda lagu qiyaasay 1,000 feet dacwad oogayaashu waxay ku andacoodeen in Hakan Aysal uu ahaa nin ujeedo dhaqaale leh iyadoo lagu soo oogay dacwadda loo haysto ee dil ula kac ah oo lagu sheegay inuu muddo qorsheynayay dilka xaaskiisa isagoo marka hore qaadaya caymiska shilka shakhsiyadeed kuna metelaya damaanad dhan 4,000 oo liiro oo lacagta Turkiga ah una dhiganta $58,000 dacwadda ayaa sidoo kale lagu xusay in Hakan Aysal uu dalbaday bixinta caymiska shilka dadka wax yar kadib markii ay dhimatay xaaskiisu laakiin wax lacag lama siin oo waa loo diiday maadaama goortaas warbaahintu ay shaacisay baaritaanka shilka ay ku geeriyootay xaaskiisu oo isaga looga shakiyay maxkamadda dambiyada ee Fitiya ayaa ku xukuntay in lagu sii hayo xabsiga maadaama uu xaaskiisa u geystay dil bareera waraysi muuqaal oo maxkamaddu ay ka dhageysatay dhibanaha walaalkeed Naim Yoklu ayaa yiri markii aan aadnay macadka dawada ee forensic si aan u qaadno meydka Hakan waxa uu fadhiyay meel u dhow albaabka guriga aniga iyo qoyskaygu waan qiiroonay laakiin Hakan xitaa ma uusan sameyn wax murugo u muuqata markii Hakan Aysal wax laga weydiiyay khidmadaha caymiska waxa uu yiri waxaan xiiseynayay ciyaaraha xad dhaafka ah ilaa 2014 sida baarashuutka boodboodka PUBG iyo xirfado kale oo halis ah taasina waa sababta aan u helay caymiska nolosha ka hor intaanan guursan Aysal ayaa sidoo kale wax laga weydiiyay qodob ku saabsan shilka oo horey loogu qoray warqadii caymiska taasi oo u dhignay sidan haddii ay dhacdo in Samra Aysal ay dhimato dhaxal sugaheeda waxa uu noqon doonaa saygeeda Hakan Aysal haddii ay dhacdo inuu Hakan dhinto kuwa dhaxlaya waxay noqon doonaan qaraabo qoys Hakan Aysal ayaa si kaga jawaabay wax badan ma aanan baarin siyaasadda bangiga ayaana diyaariyay warqadaha oo dhan waxaana u keenay xaaskayga si ay u saxiixdo kamana jawaabin inuu jiro maqaal noocaas ah wuxuu dafiray inuu mas'uulka ahaa dhimashada xaaskiisa isagoo yiri kadib markii aan sawir ka qaatay xaaskayga waxay telefoonka ku ridatay boorsadeeda laakiin cabaar kadib waxay iga codsatay inaan siiyo telefoonka waan kacay kadibna waxaan maqlay xaaskayga oo gadaasheeda ka qaylinaysa markaas kadib ma arag muuqeeda waxaan dareemay inay buurta ka dhacday ayuu yiri Hakan baaritaanka habkii loo dilay Samra Aysal ayaa wali socda iyadoo maalinba maalinka ka dambaysa ay soo baxayaan cadeymo muujinaya in Hakan uu si ula kac uga takhalusay xaaskiisa iyo cunuga caloosha ay ku siday si uu dhaxlo caymiska uu geliyay xaaskiisa ee shilka dadweynaha